subax wanaagsan dhammaantiinba ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka aan idiin hayno xilligan. madaxweynaha Puntland oo ka hadlay khilaafka kala dhexeeya ku-xigeenkiisa iyo doorashada Soomaaliya. xubno ka mid ah golaha wasiirada Somaliland oo la sheegay in laga helo cudurka COVID-19. madaxweynaha Galmudug oo ballan qaaday in maamulkiisa uu wado qorshe hubka uga dhigayo maleeshiyaadka ku sugan deegaanada Galmudug. waawaan u dhaxaysa madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa oo maanta lagu wado inay ka bilaabato magaalada Garowe ee Puntland. dad uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka iyo cudurro kale oo la dhigay magaalada Kismaayo isbitaal ku yaala. Puntland oo sheegtay in dad hor leh oo qaba COVID-19 laga helay deegaanada maamulkaas. caare ka dhalatay wiil Falastiini ah oo ay toogasho ku direen booliiska Israa'iil. iyo dibadbaxyo waaweyn oo weli ka socda gobollo ka tirsan Maraykanka. subax wanaagsan waa Talaado 2 bisha Juun sanadka 2020 Farxiyo Xuseen Cali ayaa noo waramaysa. waad mahadsantahay Xuseen. subax wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay khilaafka u dhaxeeya isaga iyo Axmed Karaash. sidoo kale waxa uu ka hadlay doorashada Soomaaliya. Cali Cilmi Salaad ayaa dhameystiraya warkan. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ka hadlay khilaaf la sheegay in maalmahan uu u dhaxeeyay madaxda ugu sareysa maamulka Puntland. madaxweyne Dani ayaa dadweyne xalay Garowe uu kula hadlay la wadaagay in khilaaf uusan ka jirin maamulka Puntland hase yeeshee uu jiro isfaham waa oo kaliya kaas oo u dhaxeeya isaga iyo ku-xigeenkiisa. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa waxa uu ka digay in si qaldan looga faa'iideysto kala aragti doonaansho uu sheegay inay u dhaxeeyo isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas Axmed Cilmi Cismaan Karaash. xaqiiqda marka loo hadlo bishii u dambeysay waxa aad dadka reer Puntland ama baraha bulshada marar badan ku soo noqnoqonayay arrimo ku saabsan in Puntland khilaaf sharci ah ama khilaaf siyaasi ah ama khilaafyo noocaas oo kale inuu ka jiro oo dadka badankiisa khalkhal ugu gelinayay oo ay dhici karto in dad shaqo ka dhigtay la dagaalanka iyo ceebeynta Puntland baraha bulshada ay wax badan ay uga hadlaan. waxaan rabaa dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed inaan u cadeeyo inuu Puntland ka jirin wax khilaaf sharci ah. waxaan kaloo rabaa inaan u cadeeyo inuu isan jirin wax khilaaf siyaasi ah. laakiin aragti kala duwanaan maamul oo xagga shaqada ku saabsan marar badan way dhacdaa. haddana way dhacdaa wayna dhici doontaa. ma aha wax Puntland ka baxsan xalinteeda. waana rajaynaynaa haddii Ilaahay in aragtida kasta oo dhacda isbedeladu waa xanuun badan yihiin. dad baa xilkooda waayo, dad baa xil cusub qabta. waa shay dabiici oo dadka xilka marka la magacaabayo ama xil laga qaadayo isbedeladaas marka qaarkood dad baan raalli ku ahayn baa dhaca. dad badan raalli ku noqdaan isbedelku. laakiin waxaan rabaa inaan u cadeeyo isbedelada aan sameynayno waa isbedelo ku saabsan dardargelinta maamulka iyo tayeyntiisa. ciidamada waxay qayb ka tahay isbedelada lagu sameynayo xagga maaliyadda iyo dhaqaalaha. waxay qayb ka mid tahay isbedelada lagu sameynayo guud ahaan Puntland iyo haykalkeeda maamul socda. dhinaca kale Dani ayaa dul istaagay hadalkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ee ku aadanaa in doorashada dalka waqtigeeda lagu qaban doono isaga oo na sheegay in Puntland aysan marnaba aqbali doonin in ay dib u dhacdo doorashooyinka dalka ee sanadka soo socda. inaan dib u dhac aysan ku dhicin xilliga doorashadu waa arrin muhiim ah oo runtii ra'iisul wasaaruhuna uu ishaaray. cid walba oo caqlina ay ishaarayso taas ayaa ah raasamaalka dhabta ah ee siyaasadeed ee dadka Soomaaliyeed ay maanta haystaan oo u baahan in la adkeeyo. wax kasta oo dadka siyaasadda Soomaaliya mas'uulka ka ah aysan heshiis siyaasadeed ka gaarin Puntland ma aqbalayso. Puntland baarlamaanka hadda aan dadka shacabka Puntland ay dooran xulashada ku tagay oo hadda waqtigiisa 4 bilood ay ka harsan tahay go'aan uma qaadi karaan. arrintaas si cad baan u sheegaynaa in lagu katsoomana ma rabno. go'aanka Puntland dawladda Puntland ayuu yaalaa golayaasheeda kala duwan iyo waxgaradkeeda. iyaga ayaana masiirkooda
taladiisa ka qayb qaadan doona. khilaaf u dhexeeyey muddooyinkii lasoo dhaafay madaxda ugu sarreysa maamulka puntland ayaa sii xoogeystay, hase yeeshee waxaa jira waawaan ay garwadeen ka yihiin isimada iyo waxgaradka maamulka puntland oo la doonayo in la isaga horkeeno labada mas-uul. dhinaca kalena madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash ayaa maanta lagu wadaa in lagu wada hadalsiiyo madaxtooyada magaalada garowe ee puntland. cumar maxamed soomane ayaa dhammaystiray warkan. warar xog ogaal oo ay warbaahinta ka helayso magaalada garowe ayaa sheegaya in xarunta madaxtooyada puntland uu habeenkii xalayto ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo qaar ka mid a isimada iyo nabadoonada puntland kuwaas oo ku howlan dhexdhexaadinta khilaafka ka dhexeeya madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash. kulanka ayaa ku bilowday isxog waraysi dheer oo ku aadan sababaha keenay khilaafka soo kala dhexgalay madaxweyne deni iyo ku-xigeenkiisa, waxaana xubnaha kulanka ka qaybgalay ka mid ahaa xubno ka tirsan guddoonka baarlamaanka puntland, iyadoo habeenkii xalayto waqti dambe uu soo dhammaaday kulanka ka qabsoomay madaxtooyada magaalada garowe. madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa xubnaha guddoonka baarlamaanka, isimada iyo nabadoonada uu ka waramay waxyaabaha xilligan uu salka ku hayo muranka ka dhexeeya isaga iyo axmed cilmi cismaan karaash. waxa uu hoosta ka xariiqay saciid cabdulaahi deni in axmed karaash iyo isagu ay isku hayaan awoodaha dastuurka uu siinayo mid kasta iyo sida ay tahay in loo wada ilaaliyo ku dhaqanka dastuurka u degsan puntland. saciid deni waxa uu hoosta ka xariiqay inuu ixtiraam la-aan ka tirsanayo xilligan madaxweyne ku-xigeenkiisa, iyadoo taasi ay keentay ku-xadgudubka dastuurka iyo nidaamka dawliga ah oo ay waajib tahay in la wada ilaaliyo xitaa haddii uu soo kala dhexgalo khilaafka iminka taagan oo kale. deni ayaa tusaale u soo qaatay digreetooyinkii ka soo baxay xafiiska axmed cilmi cismaan karaash oo sida uu sheegay xadgudub iyo fawdo ku ahaa nidaamka dawliga, isagoo sheegay in aysan dastuurka iyo shuruucda meelna ka soo gelin in digreeto madaxweyne uu buriyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. kadib markii hadalkiisa uu dhammaystay saciid cabdulaahi deni ayaa isimada iyo guddoonka baarlamaanku waxa ay ku wargeliyeen in maanta xarunta madaxtooyada puntland lagu hadalsiinayo isaga iyo ku-xigeenkiisa axmed cilmi cismaan karaash si khilaafka loo dhammeeyo. isimada nabadoonada iyo guddoonka baarlamaanka ayaa markii ay ka soo baxeen madaxtooyada magaalada garowe habeenkii xalayto waxa ay sii mareen guriga madaxweyne ku-xigeenka, iyadoo ay u sheegeen in maanta uu tagayo xarunta madaxtooyada halkaasi oo lagu wada hadalsiinayo isaga iyo saciid cabdulaahi deni. axmed karaash iyo saciid deni ayaa labadooduba aqbalay kulanka isimada ay soo jeediyeen, waxaana ay caddeeyeen in ay ku qanci doonaan natiijada ka soo bixi doonta go'aamada la doonayo in lagu dhexdhexaadiyo labada mas-uul ay ku sarreeya madaxtooyada puntland. wasiiro ka tirsan somalilan ayaa waxaa laga helay cudurka corona. warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena farxaan maxamed xuseen. xilli deegaanada somalilan uu ku sii faafaya cudurka coronavirus islamarkaana cudurkaasi laga helay dad fara badan oo ku sugan deegaanada somalilan ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka ay la tacaalaysaa sidii cudurkaasi ay ugu hortegi lahayd. saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ayaa xaqiijiyey in laga helay cudurka coronavirus wasiir ka tirsan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi, wasiirka wasaaradda maalgashiga somalilan oo lagu magacaabo maxamed axmed wacad ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in laga helay cudurka coronavirus. sidoo kale waxaa jira wasiire laga baaray cudurkaasi balse laga waayey. wasaaradda caafimaadka xukuumadda somalilan ayaa la tacaalaysa cudurka coronavirus iyadoona wacyigelin ay ka wado deegaanada somalilan. dad badan ayaa ugu dhintay deegaanada somalilan cudurka coronavirus iyadoona haatan cudurkaasi ay la ildaran yihiin dad fara badan oo ku sugan deegaanada somalilan. cudurka coronavirus ayaa saameeyey dunida oo dhan iyadoona guud ahaanba uu xayiray isu socodkii caalamka. wararka galmudug markan haddii aan eegno madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa sheegay in maamulkiisa uu wado qorsho hubka looga qaadayo maleeshiya beeleedyada ku sugan deegaanada maamulkaasi. cabdisataar xaaji cali ayaa dhammaystiray warkan.
madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo ka waday magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa markii ugu horreysay ka dhawaajiyey in maamulkiisu uu ka shaqayn doono sidii hubka dhigis loogu samayn lahaa maleeshiyaadka inta badan ku dagaalama deegaanada maamulka galmudug qoorqoor ayaa sheegay in loo baahan yahay in maamulkiisu uu xaliyo isku dhacyada beelaha isaga oo sheegay in hubka laga xareeyo maleeshiyaadka lagu dhalin doono nabadgelyada deegaanada galmudug waxa uuna ka digay dib u noqosho khilaaf qalalaaso isqabqabsi. nabadda waa u taagannahay meelaan nabadi ka jirin nolol kama jirto, meelaan nabadi ka jirin horumar kama jiri karo. sidaa darteed waxaad ogtihiin inaan galmudug maantay ka xaraynayno hubka gacmaha goonigoonida ku jira oo aan awoodda midaynayno. awooddaas iyo hubkaas iyo midayntaas ciidamada galmudug meel kasta jooga hubka haystana waxaan ku dhalinaynaa oo aan ku ilaalinaynaa nabadda. waxaan ku hor istaagaynaa colaadaha iyo isku dhacyada beelaha ee soo laalaabta haddii la yidhahdo ee maalin walba loogu dhinto macnadarrada. waa tababaraynaa ciidamada, system iyo nidaam baan gelinaynaa, amar bay qaadanayaan. wiilal maleeshiyada oo qoryo wata oo tiknika wata oo say u fakaraan u dhaqmaya ma jiri doonaan galmudug gudaheed. iyagoo tababaran, dishibliin leh, shacabka u adeegi kara, u naxariisanaya ayaad ku arki doontaan ayagoo shaqaynaya magaalada. waxaan ka digaynaa oonan dib dambe nagu dhici doonin dib u noqosho. waxaan galmudug ka ilaalinaynaa khilaaf iyo qalalaaso iyo isqabqabsi dambe. waa soo aragnay merihii ka soo baxay. hadalka madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay madaxweynaha galmudug uu kulamo la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. dad uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka iyo cuduro kale ayaa waxaa la dhigay cisbitaallo ku yaala magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose. cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan inoo soo diray. ku dhowaad 200 oo qof ayaa la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo kadib markii xaalad caafimaad xumo markaa ee ka dhalatay roobabkii ka da'ay deegaano ka mid ah gobolada Jubbooyinka ay ka dhasheen ayaa waxaa markaasi arrinta markii ugu horeysay warbaahinta u faahfaahiyay agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada Kismaayo Dr. Xuseen Qaasim Cali ayaa waxa uu sheegay in dadka la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo ay soo riteen xanuuno kala duwan kuwaas oo uu ku sheegay in xanuunada oo ay kala yihiin xanuunka shubanbiyoodka iyo sidoo kale dabeysha. waxaana sidoo kale agaasimuhu u sheegay in dadkan ugu badan caruur ay markaa xilligan xaaladooda lagula tacaalayo cisbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. 202 canug ayaa loo jiifiyay isbitaalka xanuunkaas. 2 canug way u dhinteen, intii kale badidoodu way fiican yihiin markii laga reebo tiro yaroo hadda isbitaalka jiifta. xanuunka jadeecadu waa xanuun dilaa ah oo caruurta saameyn badan ku yeesha. wuxuu keenaa in maartay caruurta ay u dhintaan xanuunkaas hadday waayaan treatmentiga ay u baahnaayeen. waxaa iyana jirta shuban biyood baa isna maalmahan jira. kolka hadda bukaano badani uma jiifaan isbitaalka, laakiin 2 toddobaad ee ugu dambeysay waxaan dareemaynaa shubanku inuu soo kordhayo. haba u badnaadeen caruur walow dad waaweyn uu ku dhacayo. 24 saac aynu ka soo gudubnay deegaano dhaca galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa laga keenayay dadyo u badan caruur kuwaas oo ay markaa xanuunada jadeecada iyo shubanbiyoodka ay soo riteen. qaybo ka mid ah Jubbaland ayaa waxaa xilligan ka curtay roobka guga, waxaana taasi ka dhalatay in qaybo ka mid ah degmooyinkaasi ay wadooyinka biyo buux dhaafiyaan, gaar ahaan magaalada Kismaayo. waxaa xilligan ka jirta in qaybo ka mid ah wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Kismaayo iyo sidoo kale xaafadaha kala duwan ay biyuhu kala xireen. Cabdilmajiid Cabaas Aadan, Fantastic, KNN, Kismaayo. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in 32 qof laga baaray cudurka corona,
waxaana ay shaaca ka qaaday wasaaraddu in xanuunka laga helay 7 qof waxaana soo bogsaday 3 qof deegaanada Puntland 24 saac ee lasoo dhaafay. dadka xanuunka laga helay ayaa kala jooga magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garowe. tirada guud ee dadka xanuunka laga helay Puntland ayaa hadda waxay gaartay 192 qof waxaana u dhintay 6 qof halka bogsashada la diiwaan galiyayna ay tahay 19 qof. halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa raadiyo Kulmiye. boqolaal qof ayaa kasoo qayb galay aaska nin Falastiini ah oo ay toogteen booliiska Israa'iil xilli uu socday goob uu ka helo waxbarasho gaar ah. Iyaad Halaq oo 32 sano jir ah ayaa Sabtidii lagu dilay daanta bari ee Qudus ee Israa'iil haysato isagoo ku socday iskuul dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay tagaan. booliiska Israa'iil ayaa sheegay in ay ka shakiyeen in Halaq uu hubsitay isla markaana uu diiday amarkii la siiyay ee ahaa inuu istaago kadibna la ogaaday inaanu hubaysnayn. wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Benny Gantz ayaa muujiyay sida uga xun yahay dilkani. waan ka xunnahay shilkaas lagu toogtay Iyaad Halaq, waxaanu la wadaagaynaa murugada qoyskiisa, waxaan hubaa in degdeg loo baari doono go'aana laga soo saari doono, sidaas ayuu u sheegay golaha wasiirada Israa'iil Axadii. dibadbaxyada ka socda Mareykanka ee looga soo horjeedo tacadigii ay ku kaceen ciidamada booliiska ee Minneapolis ayaa dhaliyay cabsi laga qabo in uu sii fido cudurka corona. dibadbaxyadan oo rabshado wata ahna kuwa lagu diidan yahay dilkii booliisku ay u geysteen nin madow ah oo uu dilay sarkaal booliis ah oo cadaan ah ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in faafitaanka COVID-19 ay laba kaclayso Mareykanka oo haatan ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee dadka uu soo ridanayo coronavirus iyo kuwa u dhintay. banaanbaxyadan ayaa yimi xilli meelo badan oo dunida ah la ogaaday in dib loo furo xeebaha loo dalxiiska tago, kaniisadaha, masaajida, iskuulada iyo ganacsiyada, taasi oo sare u qaadaysa isku gudbinta fayruska. banaanbaxyada looga soo horjeedo dilkan ayaa ruxay Mareykanka iyadoo laga bilaabo magaalada New York ilaa Los Angeles ay ka dhaceen mudaharaadyo waaweyn. banaanbaxayaasha oo qaarkood aysan xirnayn maskarooyin ayaa in badan oo ka mid ah ay qeylinayeen ama ay heesayeen. fayruska corona ayaa ku faafa dhibcaha dareeraha ah ee dadka ka soo baxa marka ay qufacayaan, hindhisayaan, hadlayaan ama heesayaan. guud ahaan dhageystayaal warkaas waxa waa naga intaa.